السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي مال والba adduunka aad ka joogteen aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. waxaan rajeynayaa meel walba adduunka aad ka joogteen inaad bashbashi barwaaqo iyo farxad aad ku wada noolaatiin. halkan waxaan rabay maanta inaan barnaamij yar oo kooban oo aad iyo aad aan ka hadlo. barnaamijkaas oo ah niyow haddii aad rabtid inaad qof caan ah aad noqotid, caannimada kaliya ma ku xirna inaad yani qof bini aadan ah wax ka sheegtid ama dadka aad dhalicaysid kuma xirna. qofka caan wuu noqon karaa ama yani haddaad rabtid inaad caan noqotid caan waad noqon kartaa adiga oo qof bini aadan ah waxba ka sheegin ama qofna dhaliceen. waxaa laga yaabaa inaad caan iska noqotid, markaasi wanaaga inaan wada faafino, sharafta waxay ku jirtaa iyo qiimaha Soomaalinimo wuxuu ku jira inaan wada faafino ayaa muhiim ah. wanaaga iyo sharaftana wuxuu ku jiraa inaan ka wada fikirno Soomaalinimada qiimaheeda meel walba adduunka aad ka joogno. waxa weeyaan qof walba Soomaali ah waxaa muhiim ah inuu ka fikiro Soomaalinimada waxay ku qurux badan tahay waa in la wada dhaqaaleeyo ama in laga wada fikiro.